bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarta horumarka jecel soo dhawaada dhammaantiinba ku soo dhawaada madasheena hoyga horumarka magacaygu waa shaakir akhyaar waxaan ahay samafale jecel dhalinyarada inuu ka caawiyo inay arkaan awoodooda waxqabad si ay u noqdaan dad waxtar leh biidnillaah waxaa mahad iskale mawlihii meeshaan nagu kulmiyey marka labaad waxaan rabaa adiga inaan kaaga mahad celiyo inaad mar kale madasheena soo booqatay ee mahadsanid walaal haddaad meesha ku cusub tahana soo dhawaa kuna darsa kanaalka insha allah kama shalaayi doontid wax waad ka faa'iidi doontaa salaan ii soo dhaweyn kadib maanta waxaan idin wadaa mawduucii aan idinka ballan qaaday ee ka haray qaybtii labaad ee jaamacadda nolosha oo ahayd qalab inaan idinkugu dhiibo qalabka waana sidaas waxaa ugu magacaabnay tools tips and tricks waa toolskii oo qalabkii ah farsamadii qalabkii ah tipskii oo macnaha talooyin ah iyo tricks oo farsamo xirfadeysan xariifnimo xalaal ah waaye laakiinse xariifnimo xirfadeysan oo ah ugu magac darnay taadaas anoo ka raacay marka laakiin toolska ugu muhiimsan oo qalabka iyo talooyinkii ah ay idinkugu dhiibi doona hadduu ilaahay idin qaybtaan sidaas darteed kusoo dhawaada qaybtii labaad ee jaamacadda noloshana muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabaha lagu barto waxaa uga soo hadalnay qaybtii koowaad insha allah linkiga hoose idin dhiga ka faa'iideysta intiina aan hore u arkin marka maanta waxaa ku saabsan tahay laakiinse jaamacadda nolosha markii la soo gelayo waxay leedahay xeerar ee leedahay shuruuc ee leedahay qof kasta iskama soo geli karo marka jaamacadda nolosha xeerarkeeda ay idin sheegi doonaa marka koobaad marka labaad meelihii laga baran kari macnaha muhiimadeedii iyo waxyaabihii laga baran karin waa idin soo sheegay maanta waxaa waa laakiin jaamacadda markaa soo gelaysid aa codsanaysid inaad wax ka baratid aa rabtid xeerarka lagaa rabo meel kastaba xeer ay leedahay soo maahan xeerarkaas inaa ilaaliso sidaa jaamacadda u dhigato xeerarkii idinla wadaagi doona hadduu ilaahay idmo qaybta kaleetana meelihii aa wax ka baranayseen idinkula wadaagi doona marka xeerka koobaad iyo sharciga koobaad aan ku bilaabano oo jaamacadda nolosha ugu muhiimsan waxaa waaye waa inaad ogaataa in aadan waxba ogeyn jaamacaddan haddii waxaa ku leedahay xeerkeeda koobaad marka waxaa waaye xeerkeena koobaad in aad ogaataa in aadan waxba ogeyn waa daadshay haddaad tahay macalina ahay khatara ahay maasha allah aniga waxba uma baahni inaad barta haddaa ataa taagan tahay lagaagama baahna jaamacaddan waxay ku leedahay may nama soo geshid iridana kaama fureeno haddaa arji soo qoratay ama cod soo qoratana la laabo haddaa aragtid laakiinse inaad jaamacaddan soo geshid ma arkino kibirka iyo isla weynida iyo waa daadsha iyo wax kasta waa aqaanaada jaamacadda irideeda uga soo tegaysaa kadib aa soo geli kartaa jaamacaddan wax ka baran kartaa marka xeerka koowaad waa kaas inaa ogaato waxba inaada ogeyn oo wax fiican wax badan aa hadda baran doontid waa daadsha haddaa tahana aadan soo geli karin marka qodobka labaad oo imaanaynaa oo muhiim ah qodobka labaad waxaa waa diyaar in aad u noqoto in aad ku dadaasho marka horeeto adiga nafsadaada inaad isbarato annaga maasha allah khatara ku nahay waa ku fiican nahay dadka kaleeta inaan xukmino inaan u fiirsano qaladaadkooda inaan sheegno waxay ku fiican yihiin inaan sheegno waxay ku xun yihiin inaan sheegno annaki laakiinse isma naqaano waxaa ku xun nahay waxaa ku fiican nahay iyo qaladaadkeena qirashadooda iyo macnaha sixitaankooda iyo afaarahaas aad uma fiicin marka koowaad waxay ku leedahay jaamacadda nolosha diyaar u noqo in lagula xisaabtamo oo adiga isla xisaabtantid oo adigi aa isbaratid si aad dadka kaleeto u baratid iyo waxyaabihii kale oo baranaysay qodobka labaad oo muhiimka ah waa kaas midka saddexaad waxaa waaye si fiican u dhageyso si fiican ugu fiirso si fiicanna u akhriso cashir kasta oo fursad u hesho jaamacaddan inaad ka barato waa dhageysigii oo muhiim ah fiirsigii oo macnaha arga keliya lagama wado waxyaabaha kaleeto oo arkaysid ama aad dareemaysid oo dhan inaad u fiirsatid ayadana muhiimadeeday leedahay ilaahayna maasha allah labadan dhagood wuxuu noo siiyey iyo halka af waxaa waa xigmada ku jirta wax badan inaad dhageysano aad aruursano oo kadibna xoogaaga aa faa'iideysanay wax badanka aa soo faa'iideysanay kala barkeed ama 3 meelood hal meel ah inaan dadka usii gudbin hadduu ilaahay idin laakiinse annaga soomaalida maasha allah arrintan aad ugu fiicnin isma dhageysan walaalahay wallahi waxaa idinkula talinahay qodobkan inaad iska adkaysiin oo la is dhageysto waxaa arkaysaa maasha allah dad badan oo fiican oo wanaagsan oo meel ku wada kulmaya haddana hadalkii aan la kala sugayn ama aan la kala qaadanaynin ama xataa dad wanaagsan oo markii dambaba oo hadalkii qof walbaba qofka kale ka dhexgelayo aan kaa dhexgalo maanta dhan socoto mid la dhageysanayana ma jirto marka qodobkaas hadduu ilaahay idmo waxaa waa akhlaaqiyan uma fiicno qof hadduu joogo xoogaa yariis ah laga faa'iideysan karo
ka faa'iideyso adigana markaaga fursadaada qaado qof walba ma arkino xogaagiisa muhiimka sheekada caadiga xataa halis dhageyso saasay sheekada ku qorxoon tahay haddii wax dhageysi tahay ama qof kaleeto oo wax laga faa'iideysan karo ee tahana waaba kasii fiican tahay maxaa yeelay haddaad dhageysanin oo qofkaas aad hadalka ka dhuurin waxaa dhici karta faa'iido badan inay ku dhaafto marka haddii aad hadlaysid adiga waxaa ku celcelinaysaa maanta dhan wixii aad taqaanay iyo fikirkaaga la sheegay laakiin qof cusub hadduu kuu joogo oo wax ka faa'iideysan kartid shibta u gal su-aal yar weydii ka dhageyso hadalka ka dhur si aad wax badan uga faa'iideysid dabcan markaagana waa tuuran kartaa adi marar waxaa jirta keliya inaad daldalantid lagaaga baahan yahay sida keliya meeshaan aa fadhiyo kaleeta ah iyo marar ee dad badan kula joogaan oo hadalka inaad qaybsatid loo baahan yahay ayadan markaas marna inaad dhageysatid waaye marna hadalka aad qaadatid laakiinse isku daydid mar walbaba dhageysigaaga inuu fiicnaado oo maanta dhan qof kastaba aa hadalka kusoo wixii kugu soo dhacaba aa adiga istiraahdo aniga waxa aa wataa muhiim ah waa sheega ah dadka kaleeto waxba igama gelin hala iska ilaaliya arrintaas hadduu ilaah idmo qodobka afraad oo kan ugu dambeeya ka horeeya waxaa waaye in aad ogaato qof dhammaystiran inuusan jirin xataan adigaan maasha allah qof fiican aad taha laga yaabo laakiinse ma dhammaystirnid qof kale oo dhammaystiranna ma jiro mana helaysid marka waxaa waaye arrintaas darteed qof kasta aa hadeer u moodid inuu fiican yahay maasha allah meel sare taagan yahay inuusan dhammaystirnayn adigana haddaa isku moodid oo qodobka koowaad oo kaleeta ah inaa maasha allah wax fiican aad taqaanood laakiinse inaadan dhammaystirnayn inaa ogaatid oo mar walbaba qof kaleeto oo wax kaaga roon uu jiro adigana qof kale aa wax uga roon tahay saas darteed cilmigii la isku shushubto oo wax kale la kala faa'iideysto adigana aan qof si qaldan iskula barbar dhigin adiga laga yaabo jaamacaddii semesterka koowaad aa dhiganaysaa qof waxaa isla barbar dhigaysaa semesterka afraad ama semesterka lixaad dhiganahay qalad waayo marka qofkaas ma dhammaystirno inaa isla barbar dhigtidna waa qalad adigana haddaa semesterka labaad aad tahay inaa qofka semesterka koowaad ah jaamacadda nolosha inaa yeestid ayadana looma baahno marka saas darteed qof dhammaystiran ma jiro adigana qof haliidin oo kama fiicnid ogaaw adigana qof kaa sareeyo ama waxyaabo kaleeta kaaga fiican ha isla barbar dhigin oo ha ka maseerin oo ha xaasideyn midka ugu dambeeya oo waxyaabahaas dhan soo koobaya oo a kusoo qaadan qaybteeni mindsetka ahayd ama habfikirka ahay oo ah growth mindset waxaa ku dhahna qofka maskax furan inuu leeyahay waxyaabahaan oo dhan waxaa baran kartaa ama wax faa'iideysan kartaa marka ay maskaxdaada furan tahay ee diyaar u tahay in ay wax faa'iideysato saas darteed qodobadii hore waa iska soo bis waaye qodobada horeeto dhan uu soo koobaa marka haddaa macnaha maskaxdaada furan tahay oo diyaar u tahay inaad wax faa'iideysatid oo inaad waxyaabaha kaa qaldanna aa saxdid waxyaabaha aad ku fiican tahana aa sii fiicnaysid aad diyaar u tahay maasha allah jaamacaddan waa lagugu soo dhaweynaa arjiga aa soo qortana waa laga aqbalaa qodobada iyo xeerarka meeshaas uga baxeynaa marka waxaa idin sheegaa 5 qodob ama 6 qodob oo meesha laga baran kara ah meelihii wax laga baran kara meesha koowaad marka aan ku horumarno waa la wada yaqaanaa qof badankiina inaa soo marteena laga yaabaa oo ah dugsi quraanki iyo iskooladii iyo jaamacadihii caadiga ahaa oo la yaqaanay kulligood marka aas-aaska jaamacadda nolosha muhiima ugu yihiin maadaama xarfihii koowaad iyo asaaska koowaad ah kasoo baranaysid iyo bulshadii iyo isdhexgalka iyo waxyaabihii iyo akhrinta iyo qoraalkiina aa kusoo baranaysid saas darteed meelahaas muhiim waaye wax waa laga bartaa waxyaabaha qoritaanka keliya laga bartay isdhexgalka bulshadana iyo arrimo kale oo muhiim ahna waa laga bartaa meesha labaad oo muhiimka ah waxaa waaye buugaagta maasha allah ayaantan waa soo dareemeynaa muhiimadeeda qofkii xataa aan akhriska ku fiicneen waxaa jirta buugaag dhegeysi ah oo maasha allah aniga dhegeysigaas iska jecelahay dhegeysigana aa ku waxaysatiin youtube way ka buuxaan meelaha kaleeta way ka buuxaan marka ama dhegeysigii ha ahaato ama akhriska ha ahaado buugaagtii hadduu ilaahay idmo ayakana cilmi badana ku joogo qof walba wuxuu xiiseynaa asaa yaqaano luqadda uu wax ku fahmayaan asagaa yaqaano ama ingiriis ha ahaato carabi ha ahaato af soomaali ha ahaato sawaaxili ha ahaato swedish ha ahaato jarmal ha ahaato luqadee rabta ha ahaato laakiinse luqadda xoogaa a ku fiicanta aa ku fahmaysid ku akhriso buugaagti waxa aa xiiseynaysid akhriso oo waxa fiican ah waaye oo adigana wax ka faa'iideysid bulshadina wax uga faa'iideyn kartid waxyaabahaas marka buugaagta ka baro meesha saddexaad waxaa waa tv-ga youtube-ka ama baraha kale ee bulshada baraha bulshada maasha allah negative yaa loo fahmin dhinaca xun dadkeen u adeegsaday maanta wax badan kama faa'iidaan ee khasaare badana ka faa'iidnaa laakiinse sida fiican haddii loo adeegsado waxaa sida youtube-kan oo kaleeto iyo facebook maasha allah sheekh shibili oo kaleeto su-aalihiisaa jecelaha aniga su-aalaha facebook sheekh shibili la ahayo marka maasha allah waxaa ka faa'iideysaa
dhinaca wanaagsan haddii laga adeegsado waxaa ka faa'iideysaa barihii bulshada. YouTube sidoo kaleeto TV-ga waa soo sheegnay. TV-ga waxaa waaye musalsalada keliya ah maaha, musalsalada badan oo dhammaanayn oo waqti dhumuska ah waa iska dhaafi kartaa, laakiin documentary-yaal jiray oo waxaa jira maasha Allah wax ka faa'iidi kartid iyo meelo aad luqadaha ka barin kartid sidoo kaleeto. laakiin meeshaan hadda ku jirno YouTube waa TV-ga mustaqbalka. meesha labaad oo macnaha Google-ka marka wax laga raadinayo, koobaad waa Google, meesha ku xigto oo waxyaabaha laga raadi oo cilmida ugu badan ay ku duugan yihiin waa meeshaan waa YouTube. wax kasta ku qor mowduuc ku saabsan ku soo baxayaan. YouTube iyo Google waa isla shaqeeyaan, waa ogtihiin, oo Google aaba iska lehba YouTube oo gatay. marka meesha ugu weyn oo wax laga baran karo waa YouTube-na sida qaldan yaa loo wax looga fiirsanin dhinaca wanaagsan oo wax laga baran karo maasha Allah. jaamacad waa asiga laftirkiisa dhinacaas wax ka faa'iideysta sida idin soo sheegay. buugagna way ku jirtaa oo buugga aniga maasha Allah inaa gata aan rabin meelahaas magaciisa ku qora waa raadiya asagoo saacada ah oo af Ingiriis ah, badan af Ingiriis ah ku jiraan. marka inuu dhageysto qofka buugagtaas asagana ha ka faa'iideysto. midda ku xigta waxaa waa raadiya ama podcast. raadiyaha waxaa waaye aaladii oo wax isku lagu gudbiyo ugu horeysa waaye ee Soomaalida iyo maxaa dhihi jiray dalalka kaleetaba ee wax ka faa'iideystaan. maanta laakiin se raadiyaha qayb kaleeto podcast wax la dhahayaa bedeshay oo waxyaabo la dhageysanaya ah dhulkeen inuu ku cusub yihiin laga yaabaa. laakiin se podcast-kaas ayadan maasha Allah waxyaabo badan ka dhageystaa oo adinkan aad ka dhageysan kartiin dad khubaro ah oo macnaha mowduucyo soo diyaariyeen ka hadlayaan ama dad kaleeto marti qaadayaan oo waxay yaqaaneen ama qaybta ay ku takhasuseen ka wareysanayaan. ayadana dhinacaas adinkoo wadadiina iska socotiin sida YouTube oo kaleeto maahan internet badan kaagan baxayo, waan iska dhageysanaysaa wax badanna waa ka faa'iideysaa hadduu Ilaahay idmo. marka qodobka ugu dambeeya midka ka horeeya waxaa waaye dadka kaa khibrada badan inaa wax ka faa'iideysto. qofku raba ha ahaado qof kaa khibrad badan, ama waalidka ha ahaado ama walaalo kale ha ahaadaan ama daris kuu dhow iyo waxyaabahaas ha ahaadaan ama macalinkaaga ha ahaado ama qof kaleeto oo ganacsi iyo waxaas ha ahaado. wax ka baro dadkaas, ma ujeedaa wax ka faa'iideyso. qof kastaba xoogaa wax meel wax kaaga roon yahay jirto, dadkaas waxaa isku daydaa in aad wax ka faa'iideysato. mentor hadduu helaysid maasha Allah ka wasii fiicanba, ama qof tababar ah oo wax ku baro oo wax ka faa'iideysan karto. xerow maasha Allah xerow waa dhihi jiray ayaantii horeeto. xerowga waxaa waaye nin caqli badan oo ahaa, sheekhu daba fariisana, sheekhaasuu khaadim u noqonaa, cilmigaasuu ka daldalanaa maanta dhan, meeshaasuu u fadhiyaa, wuu adeegaa, way sidaas u keenaa, asagana bedelkeedii sheekha cilmigiisii uu helaa. marka xerow keliya ah maahane gabadhina iyo wiilkii iyo qof kastaba waxaa noqon kartaa meeshaa rabtid inaa wax ka baratid, ama ganacsada ha ahaado ama qof kaleeto cilmiga wax ka diiniga ah ku jira ha ahaado ama qof kale cilmiga maadiga ah ku jira ha ahaado. meesha aad rabtid qof ku roon oo ka agdhow haddaa helaysid ka agdhawaa qofkaas si oo sahlan. waxaa dhahdaa waxba kaama rabo, waa kuu adeegaa bes. anigana waxyaabahaas qishkaasaa kaa qaadanaa, intiisa xalaasha ah kaa qaadana hadduu Ilaahay idmo oo inaa wax kaa faa'iideysto raba. marka ka faa'iideysta dadkaas. meesha ugu dambeysa waxaa waa asxaabtaada iyo bulshada inteeda kaleeto. asxaabta laakiin ku ekaano. asxaabta muhiimad weyn ay leedahay runtii. waxaa la yiri nabigan wuu noo sheegay asxaabtaada siday yihiin, ujeedaa si fiican inaad ugu fiirsatid, waayo haddii kaleeto aad u fiirsan weysid macnaha asxaabtaada siday yihiin adigana noqonaysaa. marka asxaab wanaagsan haddaad dooratid adigana waa wanaagsanaanaysaa, hadday xun yihiin adigana waa xumaanaysaa adigoona dareemin ee si sahlan ay kuu duufsanayaan. marka reer galbeedkana sidoo kaleeto ayagana way la qabaan. waxaa waaye waxay ku leeyihiin haddaa ama waxay ku dhahaan itus saaxiibada, anigana waxaa kuu sheegaa qofkaa tahay. kuwo kaleeto waxay ku leeyihiin adiga haddaa 4 tuug la socotid tuuga shanaad adiga waaye. qof ma arkin waa gabar allow sahal ah haddaa tahay, wiilasha tuugada dhahnay gabdhihiina si ay xaq u sinna haddaa adiga gabar allow sahal ah haddee 4 gabdhood oo xaaladooda bariga dhexata haddaa la socotid adigoo is ogeyn oo maasha Allah gabar fiican ahayd, qofta afaraad oo allow sahalka noqonaysa shanaad noqonaysa adigana adiga waaye. tartiib ee suntan kuugu socotaa adigana isma ogin. sidaas darteed marka saaxiibada u fiirsa. laakiin hadduu saaxiibka wanaagsan yahay, saaxiibada ay wanaagsan yihiin, waxaa waaye adigana wixii wanaagsanaa ugu dayanaysaa, ama adigoo ayaga ka xishoonaya wixii xumaaya iska dhaafaysaa, ama maadaama dad wanaagsan waqti la qaadanaysid fursad uma helaysid wixii xumaa inaad samaysid. saas darteed marka saaxiibo wanaagsan dooro si aad wax uga faa'iidid. nabiga maasha Allah Abubakar uu ahaa saaxiibkiisa ugu wanaagsanaaye. saaxiib saasoo kale u wanaagsan oo Abubakar oo kale ah adduunyadan hadeer in laga helaa ilma ahan, laakiin sidad kale to badan oo wanaagsan jiraan.
insha Allah dadkaas waxa isku daydaa inaa xoogaa aad dadka ka dhex xulato oo aad ka ag dhawaato insha Allah inta wax ka faa'iidi karta aad ka faa'iido adiga laftirkaaga laakiin aad noqoto qof akhlaaqdiisa wanaagsan tahay oo wax laga faa'iidi karo marka qodobada emailihii wax laga baran karay meeshaas ay noogu ekaanayaan meesha ugu dambayso inta waxa idinla wadaagi rabo waxa waaye meel kastaba in wax laga baran karo meel kastaba heedhe in wax laga baran karo fursada jirto meel kasta oo aad tagtid ama qof kasta iyo wax kastaba fursad waay wax ku faa'iideysan karto ama ha fiicnaato ama xumaato kuwa xun xataa waxa ka baranaysaa qaladaadka si aan loo sameeyin arkino asxaabtaadii oo kale hadaa aragtid meel lagu jilaafay uu ku kufay adigana wadada ma maraysaa waa maya saaxiibkaaga ku jabay meeshaas oo ogtahay waa ka leexanaysaa habarteedii ka tahay ma maraysa adigana hadaa ka baran weyso cashir laakiin oo meeshaas adigana martidu ku jirto adaa cashirka baran waa ma arkino sidaas darteed marka meel kasta wax waa ka baran kartaa aniga meelahan ay idin soo sheego dhan wax ka bartaa raadiyaha intaan ka ahayn meelaha kale to dhan mentor gaar oo hadeer macnaha qof toos oo leeyahay ma jirto laakiinse kuwa kale oo macnaha internetka iyo waxyaabahaas la iskala socdo way jiraan marka sidaas darteed meelahan oo dhan wax waa ka bartaa waxyaabaha aad ka bartaan waxa kamid diinteeda dhaqankeeda akhlaaqdeeda inaa wanaajiyo sidoo kale qof wax tar leh sida uu noqon lahaa bulshada wax ugu soo kordhin lahay inaa ka faa'iideyso wax soo gudbinta laftirkeeda mujeeda ila hadalka bulshada wax sahlan maahan ayad laftirkeeda barashay u baahan tahay waana ku dhex jiraa haduu Ilaahay idmo meel ayad laftirkeeda waxyaabaha wax ka faa'iideystay kamid tahay sameynta dhaqaale yar ma sha Allah dhalinyarada la iska yahay qof walba xoogaa mustaqbalkiisa meesha sidoo wax ugu shaqeysan lahay inuu ka fikir waa loo baahan yahay adigoo adduunyo bis aan jeclaalin lacag bis ka daba ordayn laakiin xoogaa yar meel ku rudo bulshadan u adeeg insha Allah laga yaabo adoo labadaba inaa isku heshid macnaha adoo bulshada u adeegaysid waxaageen meel yar inay kaaga soo dhacaan marka ayada laftirkeeda dhaqaalihii sida wax ugu faa'iideysan lahayd dhiirigelinta dhalinyarada iyo tababarka bulshada insha Allah oo mustaqbalka noqon doonta ayadana qaybteeda kaleeto marka waxyaabahaas oo dhan meelahan ka bartaa oo ahna intaan diinta ka ahayn diinta ma sha Allah mashaayikhda u deena inta kaleeto laakiin qodobada kaleeto waxa isku day haduu Ilaahay idmo sanadaha soo socdo qubradeeda inaan kamid noqdo Ilaahay hanagu garab galee adigana sidaas oo kale ka rabaa adigana heedhe walaalkay ama walaashay sidaas oo kale taa ka rabaa jaamacadda nolosha ku soo biir waxaas baranayno nala baro jaamacadda nolosha marka ku leeyahan hooyga horumarka bisma aha oo kama wada waxaan ka wada meelahaas kale to soo waxay oo dhan hooyga horumarka dabcan hadaa ku soo biiraysid ama kamid tahay waxa waay ma sha Allah si fiican kugu soo dhaweynayna waxaana balan waxyaabaha sirjiriiska u faa'iiday anigana inaan qish badan ka dhiibi doono oo idin la wadaagi doono waxaan oo kale hadeer dadka qaar kood inay idin sheegin laga yaabaa inay meelahan wali ku dhex jiraan tababarka u socdo iyo waxbarashada aniga laakiin insha Allah waa kaasa waa idin sheegay idinkana jaamacadda waa igala soo gali kartiin ama kan ka faa'iideysta kanaala kale to badan way jiraan ka faa'iideysta buugaagtiini iyo meelihiini kale tan ka faa'iideysta oo jaamacaddan nala soo gala oo ila soo gala hadii kale tan meesha iska sii joog choice ada iskala walaalkay ama walaashay wax qasab leeyahay ma jirto laakiin faa'iidada waxay wax kugu jirtaa inta yariist oo waqtiga heystid oo noosha xoogaa dhaqdhaqaaqaysid ina ka faa'iideysid insha Allah mustaqbalka si aan nafsadaada u anfacdid dadkeena u jeeda xoogaa yar wax ugu celisid marka ama ka faa'iideysan ku leeyahay jaamacaddan soo gal ama meesha iska sii joog choice ada iska leh waxa ku rajaynaa go'aan fiican inaad qaadatid ballanteena waa raadsan reeb